sida ay saadaalisay shirkadda CFE oo ah shirkad ku takhasustay arrimaha la talinta shirkadaha diyaaradaha. Waxa ay sheegtay in bilowga bisha June ay shirkado badan oo dhanka diyaaradaha ah ay falisi doonaan ama suuqa ka bixi doonaan. Kuwo kalena ay awoodi waayi doonaan in ay iska bixiyaan deymihii lagu lahaa sababo la xiriira xanuunka coronavirus-ka dhaqaale xumadii uu geystay. Midowga caalamiga ah ee duulimaadyada diyaaradaha oo magaciisa loo soo gaabiyo wuxuu sheegay in bishii Maaris in khasaaraha soo gaaray shirkadaha duulimaadka caalamka ay gaarayso adduun lacageed dhan 113 bilyan. Xanuunka coronavirus waxa uu araxda ku dhuftay dhaqaalihii dowladaha iyo shirkadaha si isku mid ah, gaar ahaan shirkadaha uu khasaaraha weyn u geystay. Waxaa ka mid ah shirkadaha sameeya duulimaadyada caalamiga ah, kuwaas oo qaybo badan oo ka mid ah ay cayriyeen shaqaale badan oo u shaqayn jiray. Sidoo kalena waxa istaagay 90% isku socodkii diyaaradaha adduunka. daawadayaal, halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maanta dhowr diyaaradood oo suuqa ka baxay intii xanuunka coronavirus lagu guda jiray. fadlan kanaalka Silgaar haddaad horey u taxneed like sar, haddaad hadda ku cusub tahayna fadlan like iyo subscribe saar. diyaaradda koowaad ee faliste ee aan soo qaadan doono waxa weeye diyaaradda Afyaanka. shirkaddii Colombia Afyaanka oo ahayd shirkaddii labaad ee ugu horeysay shirkadaha duulimaadyada caalamka ayaa falistay kadib markii ay la soo gudboonaatay dhaqaale xumo adag oo uu sababay xanuunka coronavirus-ka. shirkadda Afyaanka ayaa caawimaad iyo badbaado ka dalbatay dowladda Colombia, taas oo aysan ka jawaabin dowladda Colombia. shirkadda Afyaanka ayaa lagu lahaa adduun lacageed gaaraya 7.3 bilyan. shirkadda Afyaanka ayaa ahayd saan hore usoo sheegnay shirkaddii labaad ee ugu horeysay shirkadaha caalamka u kala goosha. kaliya waxaa ka horeeyay shirkadda diyaaradda KML ee boqortooyada Holland ay leedahay. diyaaradda labaad ee falistay inta lagu guda jiray xanuunka coronavirus-ka waxaa ka mid ah daawade diyaaraddii South African Airways. 86 sano oo ay dunida daafaheeda u kala duuleysay shirkadda South African Airways ugu dambeyn waxa ay falistay bishan aan ku jirno hadda ee May. waxayna qorsheynaysaa shirkaddu in ay shaqada ka cayriso 4700 oo ka mid ah shaqaalaheedii kadib markii ay awoodi weysay in ay siiso mishaarkoodii. waxayna qayb ka noqonaysaa shirkaddan shirkado badan oo xanuunka coronavirus daaqada kala baxay. shirkadda saddexaad ee iyaduna falistay ama suuqa ka baxday waxa weeye daawade shirkadda Virgin oo laga leeyahay waddanka Australia. madaxa shaqaalaha shirkadda ayaa waxa uu sheegay dowladda Australia hadal sidan u dhignaa: waa in dowladda Australia ay raadsato shirkad kale, waayo anagu ma sii awoodno in aan shaqada sii wadno, wixii aan sii wadnana waa maalmo kooban. shirkaddan ayaa waxa uu shaqaynayay dad gaaraya 10,000 oo shaqaale ah. shirkaddan ayaa waxa lagu yeeshay deyn dhan 3 bilyan, taas oo sababtay ugu dambeyn in ay araxda ka jabto oo ay albaabada soo xirato. daawadayaal, sidoo kale ma ahan shirkadaha falisay saddexda shirkadood ee aan sheegnay. waxaa ka mid ah shirkadaha falisay shirkaddii waddanka Ingiriiska laga lahaa ee duulimaadyada caalamiga sameyn jirtay ee Flybe. sidoo kale waxaa ka mid ah shirkad kale oo iyadana laga lahaa waddanka Mareykanka oo magaceeda la yiraahdo Trans-State Airlines. sidoo kale shirkadaha falisay waxaa ka mid ah Compass Airlines, shirkaddii Air Italy iyaduna waa ay falistay. shirkaddii Turkiga ah ee duulimaadyada caalamiga sameyn jirtay ee Atlas Global iyaduna waa ay falistay. German Wings waa ay safkaas ayay ku jirtaa. Miami Air International iyaduna waa ay falistay. Team MB oo waddanka Ecuador laga lahaa iyaduna waa ay falistay. dhanka kale, sida la saadaalinayo shirkadaha diyaaradaha ee laga leeyahay bariga dhexe iyo Afrika waxa ay khasaari doonaan sanadkan, waa sida ay warbixinadu sheegayaan, lacag gaaraysa 23 bilyan. diyaaradaha uu khasaaraha ugu weyn soo gaaray waxaa ka mid ah ee bariga dhexe iyo Afrika ka shaqeeya Saudi Airlines, Egypt Air iyo diyaaradda caalamiga ee Emirates. sidoo kale khasaare dhaqaale oo weyn ayaa ka soo gaaray Soomaaliya, joojinta diyaaradaha maxalliga iyo kuwa caalamiga waxaana lagu qiyaasaa khasaaraha soo gaaray Soomaaliya 130 milyan. shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya iyo xafiisyada tigidhada jara waxa ay wajahayaan dhibaatadii ugu weyneed ee abid soo wajahda. 350 diyaaradood ayaa hawada Soomaaliya mari jiray xanuun coronavirus intuusan dunida daafaheeda ku fidin. laakiin hadda Soomaaliya waxa ay wajahaysaa dhaqaale xumo adag. dhaqaale xumadaas oo ay ugu darsantay inay 130 milyan ku weyday xanuunka coronavirus daraadiis. daawad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kanaalka Silgaar haddaad horey u taxneed fadlan like saar, haddii aad hadda ku cusub tahayna fadlan like iyo subscribe saar.